weerar ballaaran ku qaadeen xirada Hiilweyn oo ku taala duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Muqdishona wax yar u jirta xoogga gaala shabaab oo hubka noocyadiisa kala duwan ku hubeysanaya dhowr jiho ka weeraray xirada Hiilweyn oo ay fadhi u ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya halka uu dagaalku ka dhacay iyo deegaanada ka fog xalay waxaa laga maqlayay hubka ay labada dhinac dagaalkii isku adeegsanayeen waxaana soo baxay warar sheegaya in halkaasi laga maqlay qaraxyo xoogan wararka ayaa intaasi waxay ku dareen xoogga al-shabaab ay qaarkood u suurto gashay inay ka gudbaan difaaca hore ee ciidamada dawladda isla markaana ay gudaha u galeen xirada inkastoo aanay jirin cid si rasmi ah warkaas u xaqiijin karta saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo aan la hadalnay ayaa xaqiijiyay in weerarka uu jiro balse waxay ka gaabsadeen inay tafaasiil dheeri ah ay ka bixiyaan sida wararku sheegayaan al-shabaab ayaa dhowr jiho ka weeraray xirada waxaana wararka qaar ay sheegayaan inay gudaha u galeen wararka laga helaya saldhigan ayaa sidoo kale sheegaya in dhimashadu ay tahay mid ka badan 10 oo soo gaartay dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka al-shabaab ayaa sidoo kale gabi ahaanba xirada Hiilweyn dab qabadsiiyay xirada Hiilweyn ayaa u dhaxaysa Muqdisho iyo Balcad waxaana ay qiyaastii 220 kiiloomitir u jirtaa magaalada caasimadda ee Muqdisho dhanka kale mas'uuliyiinta degmada Balcad ayaa weerarkan ka hadlay maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa xaqiijiyay in shabaab ay xalay weerar culus ku soo qaadeen xirada ciidamada xoogga dalka Hiilweyn maamulku wuxuu sidoo kale xaqiijiyay in xirada oo dhan ay gubanayso isla markaana la maqlayo rasaas xoogan oo ka dhacaysa gudaha xirada waxaana ay dawladdu ku eedeeyeen inay dayacday xiradaasi ciidankii joogay iyada oo daadad ay ka jiraan ayaa Balcad waxaa lagu hayaa weerar xirada Hiilweyn xalay way gubanayso rasaasna waa la maqlayay goormay ayay dawladeena garwaaqsa doontaa rafaadkeena maxaan ka sameynay farmaajiye qeyr ayaa lagu yiri qoraal maamulka uu soo dhigay bartiisa Twitterka maamulka ayaa sheegay in shabaab ay weerarka ku dileen ku dhawaad 10 ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo dad shacab ah madaxweyne ilaa goormay ayaa iska indhatiri doontaa gowraca ku socda degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Muqdishona daris la ah ra'iisul wasaare goormeed ayaa soo doosi doontaa ayaa lagu yiri qoraal maamulka degmada Balcad soo saaray madaxweyne farmaajiye dawladiisa ayaa marar badan lagu eedeeyay inay dayaceen gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Balcad oo Muqdisho daris la ah iyo deegaanada ku dhow oo shabaabku awood badan ay ku leeyihiin